بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ونور القلب ودوائه ونور الأبصار وشفائه محمد طب القلوب صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك الساعة كجوكتان walaalkiina cabaas sheekh cabdulatiif sheekh maxamed weeyaan. ilaahay subxaana wa tacaala dembigeena ha dhaafo. awalan umuurta allah inoo sakhiro, waxaan jecelnahay wanaag ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo wada siiyo, allah inoo gargaaro fi hadihi dunya, qabriga allah inoo waasici, allah inoo nuuri, xisaabta allah inoo khafiifiyo, jannaan jecelnahay camalkeeda ma hayno, raxmad ilaahay subxaana wa tacaala hanugu gaarsiiyo, hanugu geliyo. aamiin dhaa walaalayaal. raxmad ilaahay subxaana wa tacaala jannada hanugu geeyo walaalayaal. intaa kadib walaalayaal, adduunyada ujeedaan waxa weeyaan waa mataac iska yar weeyaan. mataacada way yar tahay, way kooban tahay, wax sidaa u badan ma ahan. inta qofka uu noolaanayo way yar tahay, laakiin cadow ayaa jira. cadowgaasi waa afarta cadow. qofka iska ilaaliya waxa weeyaan adduunyo buu liibaanayaa, aakharna wuu liibaanayaa. laakiin ma noqon karnaa dadka maaragtay iska ilaalin karaa. ilaahay subxaana wa tacaala fi kalaamihi wuxuu ku leeyahay, waxaa iska ilaalisaan falaa taguranakum alxayaata addunya, mise xayaatu addunya, adduunyada nolosheeda yaysan idinkadin buli alla subxaana wa tacaala. tan labaad wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala, ina annafsa la amaaratun bisuu, naftu waxay idin amraysaa maaragtay xumaan, iska ilaaliya. tan saddexaad allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, afara-ayta man itakhada ilaahahu hawaahu, qofka hawadiisa raaraaca asagana dhibaato weyn baa u sugnaatay. inuu iska ilaaliyo taana way wanaagsan tahay. tan afaraad allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, ina shaytaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa, shaydaanka cadow ba idinku yahay, idinkana cadow ka dhigta buu le alla subxaana wa tacaala. marka afartaa qofka markuu iska ilaaliyo waxa weeyaan liibaan buu helayaa, liibaan buu helayaa. marka ilaahay subxaana wa tacaala ha naga wada dhigo kuwa maaragta iska ilaalinaya nafta iyo hawada iyo maaragtay shaydaanka iyo adduunyadaba. intaa kadib walaalayaal, intaa adduunyada aad joogtay su-aalo ma isweydiisay? inta saaco adduunyada joogaysid, inta maalmood adduunya kaaga hartay, intee sano ayaa lagu ogolay inaad noolaatid? haddaa adduunya aad ka tagto, xisaabta dambeysa maxaad diyaarsatay? su-aalaha ma isweydiisay weli? nacam. waxyaalaha lagu ogol yahay waxa weeyaan arsaaqda inaad maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo maalinta, inaad maaragtay aada ku kalsoonaatid. laakiin cibaadaadkaaga iyo maaragtay wanaagga aad samaynaysid inaad ku kalsoonaanin ayaa loo baahanya. mar walbaba aad kasii badiso, inaad badiso, inaad jeclaato. laakiin su-aasha aan hadda isweydiinayo adiga aan ku leeyahay ma isweydiisay? waatuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii 40 ahaa uu ku yidhi, wazinuu anfusakum qabla an tuwaasinuu, ismiisaama intaan la idiin miisaamin. xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasibuu, isxisaaba inta aan la idin xisaabin. dan haddeertaan mis xisaabna, mis miisaanna. waa su-aalahaas ka mid tahan leeyahay mis weydiisaan. so really waxyaalaha sometimes qofka insaanka ah oo maskaxiyan uu iska dhaadhicinayo waxa weeyaan inuu caalamka sii joogayo, noloshiisaba uusan ka dhimanayn. and then markii lasoo qabto dhab lasoo siiyana markaaba indhihii fac u furmaya. laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. indhaha kuu furmay maxay tarayaan markaa? maxay kuu qabanayaan? waxna kuma qabanayaan. wixii kuu tarayaan ma lahan.
ilaahay subxaanahu wa tacaala caqligeena ha zaa-idi walaalayaal. caqli wanaagsan oo qurux badan oo anaga aan ku tadabbur aan ku samayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala weynaantiisa aan ku garanno acmaasheenan aan wax ka bedelno. allahna garansiiyo walaalayaal. qof wanaagsan anigu waa wanaagsan idima aranayo, bini aadan baan ahay, wanaag iskuma sheegi karo. adigana kadalik oo kale sa aan jeclahay, ilaahay baa garanaya qofka wanaagsan qofka xun. qof maanta intuu soo istaaga yirahda anigu qof mu'min baan ahay oo maaragtay qof wanaagsan baan ahay oo xumaan igama dhacdo, wax ma sameeyo oo khalad ma galo. qofka hadduu yirahdo qofka waatu alla uu leeyahay falaa tusakuu anfusakum, naftiina ha amaanina, huwa aclamu biman ittaqa. asigaa garanaya allah subxaanahu wa tacaala qofka ka baqaya o qofka kalaba. marka su-aasheedu waxay tahay marka walaalayaal, isweydiinaa su-aasha, adduunyada halkee intee saacadood ayaa joogaysaa? sanadaha kuwa hore waa imisa inoo hartay inaan adduunya ka tagno? war fiisaa ma laygu dhuftayo ma ka socdaa adduunyada? waa su-aal aan nafteyda weydiiya, adigana ku weydiinay. intaa weeyaan walaalayaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa jana firdowsa biqayri xisaabin inuu na geeyo walaalayaal. aamin dhaa insha allah. anigana iisoo duceysaan, anigana idiin duceeyo insha allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka jannada tagaya qaabka usoo dhaweynayo markuu ka hadlay suuratul ghaashiya markuu ka hadlay, wujuuhun yawmaidin naacima lisacyihaa raadiya fii jannatin caaliya laa tasmacu fiiha laagiya fiiha caynun jaariya fiiha sururun marfuuca وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إلهي سبحانه وتعالى maalmahaasi wejiyada sidaa u qurxoon uu ku tilmaamay qaabka loo soo dhaweynayo, kaarbidka gudan loo fidinayo, koobabkaa safan la tusayo, sariiraha iska kor saaran ay fuulayaan. waxaa lagu soo dhaweynayaa madaxweynayaasha iyo wasiirada sida loo soo dhawey diyaarada markay kasoo degayaan kaarbidka gudan loo fidinayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala taabuu ka hadlay. hadda goormu noo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaana haddeertaan bay sameynayaan kaarbida gududan. halkay ka keeneen kaarbidka gududan taqaana? horta waxaa laga soo saaray diinta weeyaan. kaarbidka sidaa loo dhigay guduudan diintay kasoo saarteen. koobabka la safayaa ujeedaan diintay kasoo saareen. waa diintayni ayay kasoo saareen, diinta islaamka ay kasoo saareen oo diintayni ay tahay. annagana waa dambeynaa. qur-aankana wuxuu inoo sheegayaa intaasoo sir buu inoo sheegayaa. sirtaa ma naqaano saan ula soo baxno. gaaladii baa intay akhrisadaan la soo baxaya. balka waran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo gargaraalayaal. cilmiga allah ina fahansiiyo. kuwa cilmiga garanaya, baranaya, ku dhaqmaya, tadabbur ku sameynaya, wax kala soo baxaya, ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga wada dhigo. aamiin dhahad. ilaahay sidaa buu u amaanayaa, sidaa buu mu'miniintiisa iyo mu'minaadkiisa u amaanaya, usoo dhaweynayaa oo hadiyaddaa siinaya. wufuuddaa la soo dhaweynayo, qaabka loo soo dhaweynayo ilaahay subxaanahu wa tacala inoo sharxay. wufuudda allah inagu daro walaalayaal. wufuudda allah inagu daro. aamin dhahade. laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. acmaashaada keligaaga bay kugu kooban tahay, xisaabtana keligaaga bay kugu kooban tahay. cid kale la weydiinaya malahan waxaad adiga samayso. walaa aabahaaga baa la weydiinay, walaa wiilkaaga baa la weydiinay, walaa hooyadaa baa la weydiinay, walaa ninkaaga mise xaajigaa la weydiinay. adigu waxaad samaysay adigu un baa lagu weydiinay. intaabaa waxaa kugu filan cabsi. keliga cid kula joogta malahan. laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, muxamadun rasuulu llah.
maraba hadalkeenaan dheerey walaalayaal, su-aal baan ku weydiinaya, su-aasha iga jawaabda awoodda weeyaan. imise maalmood ayaa inoo hartay inaan noolaano? sheegi kartaa adig. asalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.